Okay, magacaygu waa Maax. Kusoo dhawaada videoni labaad oo ku hadli doono Bitcoin Basic Explanation for the Beginners Part 2. Partiga koowaad waxaan kusoo hadalnay Bitcoin iyo qaabka u shaqeyso, xilligeeda ay soo bilaabatay, marxaladaha ay soo martay. Haddaad doonayso Bitcoin inaad ka faa'iidaysato, videon waxaan ku hadli doonaa qaabka ugu wanaagsan aad ku kaydsan karto Bitcoin-kaaga, meelaha haddaad doonayso Bitcoin inaad iibsato aad awood u leedahay inaad ka iibsato iyo qaabka ugu wanaagsan oo markaas aad u iibsan kartid. Videon waxaan hadli doonaa meelaha ugu wanaagsan oo markaas aad ku kaydsan karto long term xilliyada fog oo kala ama sida long term-ka ah ama macaashida markaas ah shay ugu wanaagsan aad ku kaydsan kartid. Waxaan uga hadli doonaa videogan khaasatan waxaan uga hadli doonaa wallets-ki iyo how to buy. Okay, intaan u gudbin kahor magacaygu waa Maax. Haddaad doonayso marka inaad u updateiso kale aad igala socoto, please igala soo xiriir Facebook-gayga iyo sidoo kale page-ka markaas aan ku leeyahay social media. Haddaan usoo noqdo marka qaybta labaad oo aan ugu talagalay inaan uga hadlo wallet-ka markaas iyo qaabka ugu wanaagsan oo markaas aan u iibsan karno Bitcoin. Waxaan leenahay marka wallet waxaan leenahay waa meesha aad ku kaydsanayso Bitcoin-kaaga waaye, oona ku ah boorsadaada. Waxaan ku magacaabi doonaa wallet. Wallet-ku waa sida boorsadaas oo kale markaas koontadaada adiga aad leedahay, meel walba aad joogto aad isticmaali karto waaye, maadaama Bitcoin ay tahay father ama mother of the cryptocurrency-ga. 4 types aa jira marka 4 nooc aa jiro aad ku kaydsan karto Bitcoin-ka. Wallet-yada markaas lagu kaydsado ugu wanaagsan hardware wallet kow, desktop wallet oo 2 ah, mobile wallet iyo paper wallet. 4taas aa ugu caansan markaas aad ku kaydsan kartid. Haddaad doonayso marka inaad iibsato how to buy and sell Bitcoin, sida u iibsan kartaa aduna ay iskaga iibin kartaa future. Waxaan leenahay person to person, shakhsi to shakhsi waad ka iibsan kartaa. Qaabkee marka digital oo physical. Qofka waxaa kusoo diri doonaa public key-giisa. Public key marka uu kusoo diro kadib public key-giisa copy gareynaysaa, send yaa leedahay oo diraysaa. oo physical waxa waaye qofka person to person shakhsi ahaan aad kulansaan qofka physical gacanta lacagta oo kaa saaro kadib public key-giisa uu ku siiyo saas aa ugu dirto. oo tusaale waxaan oo ah kan oo ah public key-ga ah. Okay, qaabka labaad oo kale waxa waaye in local Bitcoin aad ka iibsato oo like eBay oo kale oo buy sell oo kale oo la kalsoonaa. Waxaa kaloo jira exchange waxaa jiraan oo u taagan markaas inay Bitcoin ka iibiyaan. Hadda hal mar exchange-da la wadaago waxaan leenahay waa meesha ay ku kulmaan buy and sell dadka markaas doonaya inay iska iibiyaan iyo dadka doonaya inay iibiyaan, kuwaasoo marka ka dhacayo waxa la yiraahdo great price markaas uu ka dhacayo. oo sidoo kale magaca kale loo yaqaan aan leenahay stock market oo kale ah. Haddaad doonayso marka inaad Bitcoin ka iibsato local Bitcoin ama exchange jira sign up gareynaysaa kadibna trade waxa ku bilaabanaya marka inaad ka faa'iidaysato aad ka iibsato. Qaar ka mid ah waxa la baahan yahay verification. Marka aad ka iibsan kartaa Bitcoin-ka kuwa ugu caansan markaas aad ka iibsan kartid. Laba ugu caansan Coinbase iyo sidoo kale local Bitcoin ugu caansan. Midka kale soo hoosgal waxa waaye Xcoins oo ah kuwa markaas ugu caansan markaas aad ka iibsan kartid. Exchange marka waxaa jira markaas trade Bitcoin aad ka raadin karto trade ahaan aad samaynayso. Macnaheedu waxay tahay buy low and sell high. Aad ku samayn karto wax ka mid ah marka Bitcoin iyo Bitfinex. marka price-ka marka la joogo marka Bitcoin-ka qaabkee waaye. Waxaan leenahay price-ka Bitcoin marka la joogo waxay ku xiran tahay labada qofood oo markaas uu kala dhacayo buy and sell oo kala iibsanayaan. labadaas marka waxay isku raacayaan qiimaha markaas oo qofku uu doonayo. tusaale kale haddaad $10 ama $20 ama $50 aad doonayso iyo wixii ka badanba. $50 marka aad doonayso inaad Bitcoin aad ku hesho waxaan ku dhihi doonaa tusaale kale anoo kale ah waxaa la bixiyaysaa $55 ama $60 after that waxaan ku siinaa Bitcoin. kadib marka lacagta aad siiso price-ka markaas uu joogo waan kuu fiiri doonaa waqti xaadirkaasi kadib waan kusoo diri doonaa public key ay soo diraysaa kadib waan ku diri doonaa Bitcoin-ka. waxaa kaloo jira marka exchange waxaa jiraan oo person to person kaas ka dhex bixiyay waxaa ka mid ah local Bitcoin iyo Coinbase ama markaas aad ka iibsan kartid
iyaga zinjibal oo adag zinjibal kasoo doonaysa inaad ka iibsato oo ugu faa'iidaysan kartid. Haddaba soo noqono marka maadaama iibsatay meelaha ugu wanaagsan aan ku kaydsan karno waa afarta options oo aan kasoo hadalnay oo hardware wallet, desktop wallet, mobile wallet iyo paper wallet. Muhiimadda haddaan u guda galno marka waxaan leenahay paper wallet waxaan leenahay waa physical device waay. Hardware wallet waxaan leenahay waa physical device kaasoo aad ku kaydsan kartid cryptocurrency-gaaga. Tusaale waxaa ka mid ah marka Bitcoin-ka ama Ethereum oo kale aad ku kaydsanaysa USB waaye oo flash ah markaas computer-kaaga gelinayso ku install garaynayso aad ku kaydsan kartid. Kaasaana wuxuu yahay nambarka koowaad aad ku xafidan karto Bitcoin-kaaga. Labada marka ugu caansan oo la isticmaalo USB drive waxa waaye Trezor iyo Ledger waaye. Qaabkan ay ogyihiin flashkii oo aad ku install garaysanayso kadibna aad Bitcoin-kaaga ku kaydsanayso. Marka hardware drive markaad doonayso inaad isticmaasho waxaa ku wanaagsan 2000 iyo wixii ka badan oo kale loogu talagalay inaad ku kaydsato thousands iyo billion wixii ka mid ah loogu talagalay inaad ku install garayso cryptocurrency-gaaga. Labo wuxuu noqon karaa desktop wallet. Desktop wallet waxa waaye inaad soo download garaysato hadaad aad computer-ka ku shubato qaab online oo kale aad u isticmaali karto. Waxaa ka mid ah marka X oo kale ka mid ah asana example ku ah inaad ku kaydsato multiple currency Bitcoin, Ethereum iyo Litecoin kuwa mid aad ku kaydsan kartaa. qaabkaas uu ogyahay waxaa kaloo ka mid ah Jax ka mid ah Jax markaas example wuxuu u yahay desktop wallet asina multiple currency lagu kaydsan karaa. Waxaad degsanaysaa oo soo garaysanaysaa waxaad ku kaydsan kartaa Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Zcash Bitcoin Cash kuwa mid ah ku install garaysan kartaa. asoo mobile waa ugu jiraa oo isticmaali kartaa. Qaabka saddexaad waa mobile wallet. Mobile wallet waxa waaye apps waxaad kala soo degaysaa haddaad haysato iPhone ama Android kaasoo marka ku install garaysanaysa aad Bitcoin-kaaga ku kaydsan kartid. Waxaa ka mid ah marka blockchain.info qaab online aad isticmaali kartid waa number 2 waaye aan dhihi karo marka online kala joogo walletyada ugu wanaagsan oo la isticmaali karo aad Bitcoin-kaaga iyo kuwa lamid ah aad ku kaydsan kartid. qaab mobile aad ku kala kaydsan kartaa blockchain iyo Jax oo kale aad isticmaalaa qaab online aad isticmaali kartid. Paper wallet-na asana waxa waaye qaab warqadeed waaye kaasoo marka public key-ga iyo private key-gaaga aad meel dhiganaysa aad ku kaydsanaysa ama sanduuq ama meel u wanaagsan aad dhiganaysa beri ka maalin saa adigu aad u hesho waa sida dahabka oo kale waaye. dahabka oo kale haddaad doonaysa inaad xafisato gurigaaga meel fiican aad ka dhiganaysaa. saas oo kale aad samaynaysaa paper wallet-ka. haddaad doonaysa marka paper wallet inaad samaysato linkigaas oo kale aad raxaynaysaa midka ugu wanaagsan aad ku kaydsan karto Bitcoin-kaaga. Number 2 waxaan dhihi karnaa waa paper wallet. Number 2 wuxuu noqon karaa hardware drive-ka. Hadda 2018 waxaa ugu wanaagsan hardware wallet-ka. waxaa labaad noqon karo paper wallet. marka online marka la joogno labada ugu wanaagsan oo la isticmaali karo waxaan leenahay waa coin blockchain.info iyo kaasa ugu wanaagsan marka la joogo online-ka. paper wallet qaabkan u geeyaa public key iyo private key. This is public key kana waa private key waaye. waa kan aad qoran ku samaysanayso oo paper wallet-ka intaan ku yahay tusaale paper wallet-ka tusaale u yahay. That's our information keena waaye. ugu wanaagsan marka waxaa ka mid ah la isticmaali karo ugu wanaagsan markaas la isticmaali karo waxaan leenahay paper wallet iyo hardware wallet. online marka la joogo blockchain.info asal waxasan uu talageli karto kale 1000 wixii 1000 ilaa iyo 100 inta dhaxaysa. haddaad doonayso marka inaad macluumaad badan aad ogaato subscribe ama YouTube channel-kayga some more videos update aad u hesho. midda labaad waxay tahay leave me comment subscribe ama YouTube channel-kayga marka mobile wallet-ka ugu fiican markaas la isticmaalo waaye.
meel walba aad joogtaan. Guys, bye bye.